mar labaad iyo mar saddexaadba waan mahadcelinayaa inta soo qabatay. Waxaan sharaf ayaad keenteen iyo guul baad soo hoyseen. waxaanan rajaynayaa dhammaan hay-adaha kale state building baan ku jirnaaye waan soconnaaye waxaan rajaynaynaa hay-adaha kalena sidan xawliga ah inay ku dhaqaaqaan oon maalinba aan aragno mid aan xarigga ka soo jarno sidan oo kale adduunkii la soo gaartay oo meel soo gaartay. adduunku intii uu hormarayay especially dhinaca technology-ga waan maqnayn, laakiin dadkeenu durbadiiba si individual horta ula qabsadeen intaan institutionska la soo gaarin. qofka Soomaaliya uu la qabsaday uu ka daba yimid, weliba waxaa laga yaabaa inuu meelo fogfog ka sii gaaray. haddeertana institutionskeeni baa la soo qabsanaya. marka wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo maareeyaha hay-adda duulista rayidka oo ka hadlay munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta hay-addaasi ayaa xusay in muddo laga soo shaqaynayay in maanta Soomaaliya ka mid noqoto dalalka ugu sarreeya adeega hawada. ayaa ekeyo vice president oo speech jeedinayay wuxuu soo qaantay halbeeg ah eray ah haddii wadan wax rabo oo rabitaan uu ku jiro skillskii ama khibradii loo baahnaan dadkiisu ay leeyihiin wuu gaaraa. tusaalena waxaa idinku filan wadanka Soomaaliya roughly 20 milyan bay soo saartaa hay'adan hawadeeda keli ah sanadkii. waxaan rabnaa inaan laba jibaar ka dhigno sanadka soo socda haddii Ilaahay yiraahdo oo dakhligaas maanta ay hay'adan soo saarto uu laba jibaar noqdo iyo ka badan haddii Ilaahay yiraahdo, annagoo mataqaanaa ka shaqeynayna qalabkii saxda ahaa inaan helno, tababarkii loogu talagalay inaan helno. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay in arrinta wanaagsan lagu guuleystay ay tahay tallaabo weyn oo loo qaaday higsiga ah horumarinta dhaqaalaha dalka oo kor u qaadaysa sharafta iyo karaamada ummadda. maanta waa maalin kale oo runtii sumad gaar ah inoo leh haddaan nahay Soomaali. sharaf weyn ayay wasiir runtii Soomaali u tahay, aniga ii tahay, adiga u tahay, wasaaradda u tahay, dhammaan inta Soomaaliyeed meel kastoo joogaanba u tahay. waa maalin muujinaysa Soomaaliya inay horu socoto. waa maalin muujinaysa Soomaaliya inay rajo aad u wanaagsan inay leedahay. maalin muujinaysa Soomaaliya inay dhaqaaqday runtii oo ay meel wanaagsan ay u socoto. 10 sano ka hor halkaan isay ahayd, ciddii taqaanay ama joogtay way garanaysaa. maantana say tahay waa u jeednaa. waxaan ka hadlaynaa, waxaan ka soo dhaqaaqnay from G to A. waxaan sameynaynaa inaan dhahno European style baan joognaa iyo halkaasaan maraynaa. waxaan filayaa si aad u xoog badan inaan usoo dhaqaaqnay runtii.